انت arrintu tahay fila wardhiigley waa tashanayna inagu xasanna loo joojin maayo waxaan u maqlaynaa wasiirkii arrimaha dibadda oo leh doraato ma ahayn Jubbaland iyo Puntland doorasho qof fiican laga qabanaya oo wasiirka arrimaha dibadda maxaa ka galay arrimaha gudaha wasiir taataabo baa magaciisa la yiraahdaa Puntland ma aha dalka go'ay Soomaaliya waxa la yiraahdaa dawladda Puntland ee Soomaaliya baa la yiraahdaa burburkii markuu dhacay oo sanooyin kadib la yimi maxaa lagu heshiiyay dalka Soomaaliyeed inuu federaal noqdo dastuur iyo shuruuc baa lagu heshiiyay awood qaybsi baa lagu heshiiyay oo dawladda federaalku ay leedahay awoodo u gaara dawladaha xubnaha kayna awoodo u gaara leeyihiin laga gudbay nidaamkii ahaa caasimadda oo kaliya in dalka looga taliyo talada la daadajiyo sharci baa laga dhigo waa la qoray sharcigii la qortay wax lagu qaybsado ayaa lagu ballamay nasiib daro madaxda inta badan xamar timaada ha ugu daraato tahadda joogta waxay keentay dastuurkii horta inay tuureen xuquuqdii aasaasiga ah dadka Soomaaliyeed ka dhaxaysay inay tuureen maxaa u dambeeyay Jubbaland oo lagu duulay baa u dambeysay loo diiday inay isdoorato Soomaaliyeed maxaa ka sii horeeyay Puntland oo la yiri ma qabsan kartaa doorasho iyo qof doorasho ma qabsan kartaa qof iyo cod ah oo hadda qabsataan 24 maalmood baad ku burbureysaan madaxweynaha hadda fil wadliig la joogaa yiri fila baydhaba sanooyin badan markii dawlad la'aan Soomaaliya ahayd calanka buluuga ee shanta xidigood leh madaxweynaheena Cabdilaahi Yuusuf iyo dhiigii inamadeenna iyo qalabkeennii iyo lacagteennii baa calanka lagu geeyay fila baydhaba laakiin maxay isu bedeshay mashruuc uu leeyahay xasan iyo qoyskiisa kaliya isu bedeshay hadda fila baydhaba waxaynu ugu yeeri doonaa marka sharcigu soo noqdo oo caasimad la wada leeyahay iyo madaxtooye la wada leeyahay oo fila Soomaaliya la oran doono markaas fila Soomaaliya maxaynu oran doonaa marka sharcigu loo siman yahay xuquuqda loo sinaado madaxweyne dadka Soomaaliyeed uu siman yahay uu ku soo noqdo baynu oran doonaa fila Soomaaliya intay mashruuca gaarka ah tahay waa fila wardhiigley Puntland dooni mayso in Jubbaland lagu duulo dooni mayso in Koonfur Galbeed lagu duulo dooni mayso in Hirshabeelle doorashada loo diido dooni mayso in Galmudug doorashada loo diido oo lagu duulo waxaanu rabnaa dawlad federaal oo loo siman yahay oo la wada leeyahay haddaba haddaad maqashaan dawladda Puntland iyo dawladda federaalka ay sayay waxa la isku hayaa wax xuquuqdiina weey waa mustaqbalkiinii berri dawladda Puntland iyo madaxweynaheedu waxay u doodayaan xuquuqdiinu inay aasaasi noqoto buuga ku qoran tahay oo aan lagu murmin wayna saaw ogaataan markaa social media waxa ku qoran aad aragtaan mar walba dawladda Puntland waxay khilaafaysaa dawladda federaalka ma khilaafayna waxaan leeyahay sharcigii loo sinaa ee lagu heshiiyay ee dawladda federaal oo la wada leeyahay waa in la helaa intaas oo leenahay kaliya waxaad maqasheen madaxweynaheena oo fagaarayaal badan ka sheegay war Soomaaliyey war fagaaraan ku garnaqsanayna war hadaanu daranahay hana la qabto war hadaanu gar leenahay hana loo garaabo mid maqasheen cid ka jawaabtay kamayna maqlin Soomaaliyeed ka jawaabtay waxaan maqlaynaa wasiirkii arrimaha dibadda oo leh doraato ma ahayn Jubbaland iyo Puntland doorasho qof fiican laga qabanaya oo wasiirka arrimaha dibadda maxaa ka galay arrimaha gudaha social media marka wax lagu qoro waxaan rabnaa inaad ka jawaabtaan waxa la difaacayaa wax xuquuqdiinni waxa lagu gardaroonayaa wax xuquuqdii aabihiin iyo hooyadiin iyo walaaladiin iyo gurigiina iyo xaafadiina iyo dariskiina magaaladiina iyo dalkiina Puntland waxaad maqlayseen wasiirku markuu wasiirkeena ku wareejinayay shaqadii wasaaradda arrimaha gudaha inuu yiri Puntland taataabashay ka rabtaa wasiir taataabo baa magaciisa la yiraahdaa taataabashadii sidii uu rabay uma dhicin wuxuu rabtaa in Puntland la dhibaateeyo
buntland niyad wanaag taageero Soomaaliyeed garab istaag Soomaaliyeed waad garanaysaan 4 sano oo xiriira dawladda federaalka xilliga Cabdilaahi Yuusuf Allahu naxariista madaxweynaha qaaliga ah lacagta iyo miisaaniyadda ay ku shaqaynayso dekedeena laga soo qaadi jiray qaaraan Soomaaliyeedna ma ahayn caawimaadna ma ahayn abayaashiin iyo adeeradiin iyo awowayaashiin baa bixinayay kiishka laga soo dejiyo dekeda Boosaaso iyo neefka laga dhoofinayo iyo dukaanka aabe iyo hooyo cashuurta laga qaadayay baa dawladdii Soomaaliyeed lagu dhisay oo caalankii Villa Soomaaliya lagu geeyay haddaba inta arintu tahay Villa Wardhiigley waa tashanaynaa inagu xasanna loo joojin maayo waxaa inoo ballana isgarabtaagga dawladdeena go'aanka adkaa ee maalin adag madaxweynaheenu qaatay uu go'aan ku gaadhay dadka reer Puntland inaan ajnabi ku soo xadgudubno aynu iska celinno ciidamadeenu ka dhameeyeen saraakiisheenu ka dhameeyeen oo naftooda hureen oo sarkaalkii iyo askarigii isku mid ah xabadii u rideen oo ku shahiideen waynu garab taaganahay adeega Kaftoon ee bangiga Salaam waa adeeg ku sahlaya in lacagtu kugu jirta akoonkaaga bangiga aad kala bixi karto ama aad dhigan karto adigoo adeegsanaya moobilkaaga Golis xilli kasta habeen iyo maalinba si khidmad la'aan ah adigoo aan booqan xarumaha bangiga